بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka araha oo aan ku yeegina maanta daawadayaal qiimaha iyo muhiimadda ay ugu fadhido kheyraadka ku duugan badaheena Soomaaliland iyo nimcooyinka Ilaahay uu ina siiyay ee ku duugan badaheena ugu horeyn marka hore waxaan wareysi la yeelan doonaa iyadoo qaybaha kale aad barnaamijkeegan aad ku daawan doontaan shirkadaha kalluumaysiga ee Soomaaliland iyo sidaabaha ay uga faa'iideystaan ayaa waxaan marka hore la yeelan doonaa wareysi agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliland Sam Umar Geedi Sam ayaan ku soo dhaweyn doonaa iyadoo dhawaan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha Soomaaliland ay shaacisay in la madnuucay isla markaana la joojiyay kalluunkii inaga iimanayay dhinaca dibadaha ay keenayeen diyaaradaha Soomaaliland soo cagarita qaar kamidii waxaan weydiin doonaa marka hore waxaan ku soo dhaweyn doonaa Sam agaasimo ku soo dhawow telefishinka Bulsho TV barnaamijkan aan ku eegino kheyraadka iyo nimcooyinka Ilaahay uu nasiiyay ku duugan badaheena ugu horeyn information fiican baad naga sii faahfaahin qaabku noqonayo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ودمات سنتهاي بلشة تي في يدعو يا شباب سؤاشا انتان سبفا فاسن وجودهان مركز الشباب بدأ ينعمل تهلا إن بدن بعد مقاشان بدينو إنه تهاي بدر أهلنا حيب در وإلى 6 كيلومتر حيبتنا ودحيسا لو يعد إلى قو أي ودحيسا وحاول القياس بدك أما إيريا ذا بدينو إنه تهاي 65 أما اللحظة شان كيلومتر اسكوريك حتى ذاكتان حتى كلايمات كأما عمل هذا بدينو هذا الشير وعمل في عن كل البالي هذا حيبته كل شيء حيبته إنه حقيقة بسنتها مركان جدا ليه ولا بقى يبود دينا عجل بيتك يدنا عبرجة دينا عجل بيتك حيبته وحيب اللارن وأبوره كسر كيان ومال بعاده له دينا عبرجة مركان تكتوه مال بورلي أي حيبته وبورها يكسلوا هذا حيبته أساس ورت حيبته كانت هاي مركان إيش تو حاجة برواقة كشرتها مركان إيشتان وحلو قياسا مال ولا بقى
deegaanka baddu siduu u samaysan yahay ayaa khayraadka ku xiran yahay waxay leedahay baddeenu deegaan ama continental shelf ballaaran bay leedahay ama waxaa la yidhaahdaa shelf qareed ama qareed bay leedahay waa deegaan baddu ay xeebta markii saa looga dhaqaaqo ilaa badda in dheer la soconayo ayna noqonaynin meel dheer ayna noqonayn baddu oo ay leedahay shacaabi u ku noolaada kalluunku marka deegaanka noocaas ay ku noolyahay kalluunku marka baddu hoos u dheeraato meelaha dheer dee waxa noloshu way sii yaraanaysaa marka baddeen waxay leedahay meel kalluun ku noolaado oo continental shelf ballaaran bay leedahay oo lagu qiyaaso xagga sayla ilaa 40 kilomitir badda saadaadu socoto deegaankaas samaysan yahay ilaa berbera oo sii yaraada dhinacan xitaa markaa uu leeyahay deegaanka ku noolyahay kalluunku marka aad ku soo noqoto kalluumada ku nool baddeena markaan tirahaan ku soo koobo ama inigu sheekeeyo iniga sheekeeyo inta nooce laga helayo kalluunka lafta leh iyo waxaan kala saareynaa haddana kalluunka carjowda ama libaax badeedka iyo kalluunka kala saareynaa kalluunka caadiga waxa ku nool 160 family ama bahood marka baa loo qayb sinjiyaan hadii loo bedelo ama noocna loo bedelo waa 657 nooc ayaa lagu qiyaasaa inta ku nool nooc ku nool xagga libaax badeedka 14 family ama bahood ayaa lagu qiyaasaa in badeena ku jiraan oo dhigayo oo si kala baxaya 45 nooc oo libaax badeed ah حتى لوبسترك أما أرجوستة أما لانجوست لو يقارنوا سديد طبعا سجبة كتيرة حتى قوقبت أما شربسك صدني أفر نوع أيال كشيء عمرته وجدت أي نوع كتيرة شربسكنا كلهم هذا كتيرة وحوي هو جناح سجلة أو وكلا بحيلون الله قيبود كو ديجان وأنجورين وهذا كتير بدأ يكون صومر حلي أو يكون سنتين صومر حياتنا تكون ذي تمديهين مرتا حاجة تلون كانوا نعيضاس ساس نفسه كلا بحان مرتا أنت واحد ترتيب وين إن سرد كل ما يسقي خيرات كبدها الصومال لأن أي صوص صار تحير لقوم النوع أيو إلا كانوا كلون كي نجي من شري دبته مرتا كلون قد بدي نجي من شري معها كي markii daasadahu ahaa mise wuxuu ahaa kii kale ee diyaaraduhu ay keenayeen Soomaaliya dhinaca ka yimaanay kay wasaaraddu madnuuqda keebu noqonaya waa su'aal aad muhiim ah oo loo baahan yahay in dadka loo kala cadeeyo si aan isku qaldamin horta waxa la joojiyay ma aha kalluunka qasaaca ah inay tawasaacad baa sheegaynaa kalluun qasaaca oo qasaacaysan oo waddanka yimaada lama joojin waxa la joojiyay kalluunka laga keenayay Soomaaliya laga keenayay oo airportada laga soo dejinayay isagii oo markaa la soo qaboojiyay oo nooca la joojiyay ee badal laga joojiyay inuu soo galo waddankeena sababta loo joojiyay waxay ahayd maadaama aan ku jirno xilliga kalluunku aad fara badnaa oo keenni meel kala geeyay leeyahay xilligan markaan ku jirno bishii November iyo October iyo December kan walkeega kalluunku wuxuu badan yahay qeyr caadi badan yahay waxa loo leeyahay meel lagu kaydiyo kalluunkeenii halkan waxa loo leeyahay kayd baa loo leeyahay barbar meel dhiga leeyahay dooyihii badda baa laga saaro waxa la yiraahdaa xajala dhiga soo saaro sidoo kale marka meel la geeyala haddana kalluun kale dibadda laga keeno waxa noqotay arrin aadan isqabanaynin laba dhibaato yeelatay mid waxa weey dadkeenii soo saaray waddanka kalluunka soo saaray haddii laga iibsado waa kalluunki waxa noqotay taasi moral jab ku noqonaysaa dhaqaalaheena wax buu dhacaysaa talabaad kalluunkeena soo saaray oo khasaaraya inaan kalluunka la keenno haddana markii wasaaraddu waxay qaadatay siyaasadeedu waxa weey in la dhiirigeliyo ganacsatada maalgashatay xeebta badana kalluunka ka soo saaraysa in la dhiirigeliyo weey in kalluunkeena la isticmaalo suuqyada la geeyo dibadda hadduu ka badan yahay suuqeena waxa muhiim ah in suuqyada kale marka la geeyo dibadda loo dhoofiyo ma in la dhoo keenay inaga kalluun kale kalluumaysatada waxay ku qasban yihiin oo ka dooranaa inay ku filaadaan suuqeena mar walba inay suuqeena ku filaadaan iyaga wax saarada ma aha in la yiraahdo
kalluunkii kale hal joojiyo isagoo kalluunkeeni ku fileen marka kalluunkeeni uu ku fileen yahay ganacsadeen waxaan ka doonaynaa dawladahan in ay soo saaraan oo suuqiyadu inta u baahan yihiin gaarsiiyaan wixii saayidana dhoofiyaan marka kalluunka la joojiyo waxa weeye ka dibadda laga keenayay ee aan qasacaysnin weeyaan ee qabowji diyaaradu keenayay agaasime waxaa jirtay qorshe ballaaran oo ay bixiyeen deeq bixiyayaasha caalamku oo mashaariic ballaaran oo lagu horumarinayay ganacsatada ama waxaan jeeda kalluumaysatada Soomaaliland oo dhan lagu hirgelinayo hawshaasi waxa uu xil saarnaa hay'adda Oxford iyo حفيوكا سيدي مشروع عسل الشيء مشروع عسل مكان كوم مريا هالشيء كيف مكفلين نقول واقعين الفلين دون أضلك وحكر له وسوق هذا العطاء فرابضا لو هان لقد واشي سنة كان اللي كتير ورنتا وحا أنفلنا إن شاء الله تعالى بلاد ما بيمك كلوميسيا ووزارة كلوميسيا يكلوميسيا وطن كذا مشاريع عصبة وبلاد ميسا ومدبدا لك سو شقيني مشاريع اسمها اورس فام مشروع ودو كليه waxa jira mashaariic kale oo iyaduna wadaan hay'ado kale kulligood waxay bilaabmayaan qaarna way bilaabmeen qaarna sanadka toodiis ay bilaabmayaan waxa kamid ah mashruuc kale oo hay'ad kale ay wado qaybta Oxford Farm ay wado mahayna qaybteedii labaad ah hay'adana waxa la istidid waa Holland bayaan iyaduna sanadka toodiis waxa bilaabma 2015 ka ayaa insha Allah ka sana bilaabmaya waxa jira mashruuc kale oo isaguna FAO da wada fawdo oo isaguna qaybtii joogaad qandaraasadii joogaad la bixiyay oo isaguna bilaabmayba sanad wala 3 sano soo socota waxa kale oo jira mashaariic kale oo hay'ado kale noo wadaan jasbi oo kale iyaduna bariga imka salaaka wada mashaariic ayaa jira marka kalluumaysiga waxa hadii badan uu fadhiyay wasaaradda kalluumaysiga ama kalluumaysiga waxa laga qabanay imka waxa jira mashaariicahaas badan baa u bilaabmaya oo insha Allah taala aan filayn in lagu horumariyo kalluumaysiga laba qaybood oo kala baxayaan imka ka Oxford Farm hadi weydiisay waxa uu ka kooban yahay mashruuca Oxford Farm soo qaatay laba qaybood waxa bixiyay suuqa dhaqaalaha reer Yurub bixiyay marka waxa mashruucaasi laba qaybood ba loo qaybiyay qaybna waxa ku guuleysatay Oxford Farm qaybna waxa ku guuleysatay hay'adda istidad aan ku leeyahay waxa uu kala qaybsay haddana mid walba target beleedahay oo waxa saarantaa horumarinta wasaaradda kalluumaysiga iyo qaybaheega waxa hay'adda kale ee sidid iyaduna ay soo qaabisanta horumarinta kaabayaasha xeebaha iyo in la shaqeyso kalluumaysatada la shaqeyso saas oo kala qaybsay marka mashaariicdaasi qaarna way bilaabmeen already qaarna wax bilaabmeen sanadkoodiisa agaasime Sam waxaad ka mid tahay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha kalluumaysato badan oo ganacsato ah ayaa soo dhaweeyay arinta joojinta kalluunka Soomaaliland dibadaha kaga yimaanayay fariintaad u farayso ganacsatada dhinaca kalluumaysatada maxay noqonaysaa agaasime la hadlayna kalluumaysatada soo dejisa ee kalluunka soo saarta ee ka shaqeysata wasaaradda mar walba waxa diyaar u tahay cidii maal gashanaysa badda ee maal gashanaysa lacag la gelinaysa in wax la qabato dadka maal gashadeen waan soo dhaweynay intii kale ku soo biiraysan waan soo dhaweynay waxa iyaga ka doolina waxa weeye in suuq kalluunkeena ay ka faa'iideystaan oo ay soo saaraan suuqa wadanka inay gaarsiiyaan kalluun ku filan baahida taala marka aad eegto bika wax soo saarkeenu ma gaaro sanadkii maalintii 3 san baad maadaama la hargeysa iyo wadanka hargeysa oo dhasha sanadka bishii 9 san marka wax badan ma aha intaas waxaan doonayaa soo kordhiyaan baahida suuqa u baahan yahay hargeysa ma ahine berbera burco boorama jabiile ay u baahan yihiin oo ka badan tahay marka suuqa inay soo gaarsiiyaan kalluun ku filan oo ay gaarsiiyaan wixii markaa kadibna ay u gudbaan heerkii ahaa inay dhoofiyaan waxa jira suuq ballaaran oo Itoobiya laga helayo oo kalluunka u baahan taaba ayaa u diyaar ah marka suuq way imaayeen waxa ka soo yeelnaa iyaduna inay ku filaadaan suuqa wadankeena iyo dibadda si awra kalluun kale meel kale looga keenin oo aan loo baahan in laga keeno meel kale intaas agaasime waxa jirta imika maraakiibtan shisheeyaha markay ku soo xadgudbaan badaheena waxa la yiraahdaa waxay sameeyaan
markay soo galaan biyaheena iyo badaheena xilligeeda yimaadaan waxay ku aasaan matalan sumihii oo kale oo dhaqdhaqaaqa ma la socotaan xeebaha Soomaaliland oo dhan wasaaradda kalluumaysigu ka war haysan arrinta waddankeenu wuxuu leeyahay ciidan la yiraahdo ciidanka ilaalada xeebaha oo xil saaran nabadgelyada xeebta iyo wixii ku soo xadgudbaya iyo wixii sharci darro ah ee maraakiib ah ee soo galaya ciidankaasina waa ciidan imika aad u qalabeysan oo la habeeyay xilka ay mas'uuliyaddaasi ay saaran tahay waxaan hubaa badeenaas ilaahay mahadi wali wax sul hool ugu daadiya ma jirto inkastoo badaha Soomaaliya la sheegay in lagu daadiyo sun laakiin badeena marna lagu basdaadin marba kalluunkiyo caadiyo moodin la sameeyay baa soo caadiyo waxa su'aashaasi way timaadaa sanad bay timaadaa kalluun soo cari hadda aragtaan maaha sun inay keento phytoplankton ayaa keenta oo waxa weeye fenomena kala jirta arrin kale ayaa jirta oo badda ka dhacda ayaa oo cilmiyan loo yaqaano marka ayaa jirta oo keenta marmar inuu waa marmar weeyaan kalluun badan inuu soo caariyay marka waa arrin la ogeeyay taas ma sun inay keento wax sun howl ugu daadiya badeenaasina ma jirto ciidankeenuna marka aad buu qalabeysan yahay ilaalada xeebaha iyagana xilkaas saaran yahay wasaaraddu ogtahay wixii laysan siisan oo ogtahay wixii kalena waxa weeye bilaa sharci u noqonaya waxaana loo dirayaa ka mas'uula ilaalintiisa ciidanka ilaalada xeebaha simaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha Soomaaliland oo waraysi nagu siinayay xafiiskiisa daawadayaal qaybaha kale ee barnaamijkan ayaa waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah shirkadaha kalluumaysatada Soomaaliland oo aan wax ka weydiino bal hadda sidee u arkayaan joojinta kalluunkii ka iman jiray dibadaha ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha Soomaaliland ay dhawaan si rasmi ah u shaacisay in la joojiyay kalluunkii ka iman jiray dibadda barnaamijkan ayaa noqon doona barnaamij xiiso badan oo ku eegi doono ilaa dadka ka ganacsada iyagu haday yihiin xataa hodheelada lagu isticmaalo kalluunka dhamaantii waxaan leenahay daawasho wanaagsan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا وهاجاك داوديال إمكانه وحى عنو لكلني أحمد محمد عمر أو لقنا نيسو خضر أو ملكي لها هوتيل تلحيس إسلامر كان معمولها جود شركة ناشنال فيشن كمباني oo iyadoo shirkad soo saarta kalluunka ama ka ganacsata kalluunka Soomaaliland ee dalka marka hore waxa ku soo dhaweyn doona Axmed Maxamed Umar oo lagu naanayso Khadar ku soo dhawow Master Axmed gudoomiye barnaamijkan aanu ku eegayno bal hadda faa'iidooyinka iyo kheyraadka ku duugan badaha Soomaaliland ee dhinaca kalluunka badda Soomaaliland ee dhinaca kalluunka marka hore shirkadda national asaaskeedii iyo adeegyada kala duwan ee aad qabataan telefishinka bulshada ku soo dhaw habeenkan caawa aad baad mahadsan tahay introduction-kii inta aad sheegtay weeye laakiin markaan aan guda galo shirkadda National Fisheries waa shirkadda muwaadiniin reer Somaliland ay abuureen 2 sanadood ka hor shirkaddu muddo dheer ayay ku jirtay heerkaanu maanta joogno oo faahfaahintiisa bixin doono inaynu gallo doontu waxay leedahay doonyo waaweyn iyo doonyo yarba way leedahay waxaanu ka ugaarsanaa kalluunka min Saylac ilaa iyo meel la yidhaahdo Harshow oo barigaas doonyaha iyagu marka ay soo qabtaan kalluunka marka waqtigan xaadirka waxay keenaan magaalada Berbera waa lagu soo sifeeyaa kuwii u baahan sifays ama googoys dabata gawaadhi aanu leenahay oo talaajada lagu soo qaadaa waxa la keenaa Hargeysa huleelka dhexdiisa container weyn oo ilaa 20 tan qaadaya ayaa dhex yaala si aanu oo halka lagu kaydiyo si aanu kalluunka u xumaan nooca kalluunka ee aanu ugaarsanaa way farabadan yihiin laakiin waqtigan xaadirka nooca Somaliland lagu cunaa waa wax tirsan way kuwaas oo marka ugu horeeya dheerigu waa kamid bayaadku waa kamid
zaynuubta oo nooc tuunada way jirtaa markaa dee nin shabaka tuuray waxa uu soo geli doono war uma hayo laakiin annagu waxaanu qabnaa in baahiyihii kalluunka ee somaliland aanu buuxin karno axmed waxaa jirta dhowaan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda somalilan waxay soo saareen xeer ama wareegto lagu madnuucayo in dalka somalilan la keeno kalluun ka yimaado dhinaca dibadda sida weliba soomaaliya oo kale oo baryahan dambe ay soo qaadiyeen shirkadaha diyaaradu arrintaasi haddaad tihiin idinku ganacsatadii dhinaca kalluunka ee dalka gudihiisa wax kala soo baxayay badda sideed u aragtaan arrintaa kasoo yeedhay wasaaradda arrintaa iyadaa sharikad ahaan anagu taageero buuxda ayaanu siinaynaa wasaaradda marka horena de siduu inoogu iman jiray waxa dhacday in baahidii oo jirta sharikaadkii localka ahaa aanay buuxin karayn maadaama sharikaadkii localka ay buuxin karayaan ama ay kaba badnaan doonto de waxa xamar inooga yimaado kalluun inagoo bad 850 kilomitir leh marka horeba may wanaagsanayn laakiin awoodeenna markaa gaarsiisnayd waqtigan xaadirkaana waxaan ogahay ugu yaraan ilaa 5-6 doonyood oo waaweyn oo Somalilanders ay leeyihiin inay badda ku jiraan oo aanu kalsooni weyn ku qabno inaanu tii gudaha iyo tii dabadda loo diray Itoobiya baynaanu kaafeen karno أحمد محمد عمر واحد خضر لقونا نيسو محاد ما أنت فرين ألكن كتشيدين لهيد أو برشة أما عد كستو أو ضنينيسا إن خيرات كبض الصومالي لان لقى فايديستو إسلامر كان الله استعماله كلون كي فايدوين كوينو لي محاد سو تشيدين لهيد برشة الصومالي لان نتاوانيسا برشة الصومالي لان تقولين كوكو بابيني وحوي أو تكلون كعونستيسا heerkan ay joogto waa inaynu sare uga qaadnaa dadkii la cunayno hayn muddo qaadataa waa wax daraasado fara badan laga sameeyay laakiin taa ugu weyn waxa weeye dadkeeni inay bartaan ama ku dhiiradaan kalluunka inay cunaan taas waa tii xagga cunista taasna anagu qorshayaal baan noo yaala inaanu samayno programmo fara badan ama idaacadaha iyo TV-yada iyo bandhigyo dadka la tusayo faa'iidooyinka waaweyn oo kalluunku leeyahay sidaan u soo bandhigi lahayn nagoo la kaashanayna warbaahinta iyo wasaaradda kalluumaysiga ta kale ee aan fursadan uga faa'iideysanaya waxa weeye in dadkeenu aanay geel iyo booshariyaal aanay noqonin ay ku dhiiradaan in qalabkii lagaga shaqayn lahaa badda in ay maal gashadaan uu noqdo aynu noqono ummad badda ilaahay siiyay khayraadka faraha badan leh uu ku duugan yahay inaynu ka faa'iideysano taasna waan ku guubaabila shirkadan National Fish imisa xafiis bad ku leeyahay gobolada waxaanu ku leenahay saldhigayga ugu weyn wuxuu noqonayaa oo qalabkii oo dhan uu dhan yahay magaalada Sayla baraf dhaliyihii baa jira qaboojiyayaashii baa jira ayaa yaala agabkii lagu googoynayay kalluunka oo dhamina wuu yaala hawsheeda sida ugu dhaqsaa badan laanu fulinaynaa taas xafiiska iyaga labaad waa Hargeysadan xafiis waxaanu ku leenahay Harshow meel la yiraahdo oo mayl 70 kilomitir u jirta laakiin ujeedadu waxa weeye in meesha hota waqtigan xaadirka aanu doonayno Somaliland inaanu ku daboolno baahiyahooda kalluunka waa Hargeysa ana population-keena dadkeena oo dhamay halkan la isku weeyay laakiin waanu ku tala jirnaa inaanu tago jaalagayno inaanu geyno Boorame iyo Burca iyo meelahaanu gaarsiin karno aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Maxamed Cumar oo lagu naanayso Khadar oo ah maamulaha guud shirkadda National Fishing Company isla markaana ah mulkiilaha hotel Dalxiis waxa uu warbixin naga siinay faa'iidooyinka iyo khayraadka badda Somaliland ee dhinaca kalluunka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay bulshada kalluunku bal waxaan ku soo dhawaataan daawadayaal imikana qaar ka mid ah muuqaalo isticmaalka kalluunka iyo sida looga isticmaalo
hudheelada Soomaaliland ee waqtiga yar daawan doona fiiriyo kamid aad u mahadsantii waa mahadsantii bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacaygu yahay Khadar Yaasiin Muuse admin and finance hotel dalxiis ahna suuqgeliyaha shirkadda kalluumaysiga ee National Fisheries Corporation baabuurtan inoo muuqata waxa weeyaan kuwan ku soo qaadna kalluunka berbera kaga soo qaadno markii doontu keentay berbera halkan ku keenno waxay leeyihiin qaboojiyaal kalluunka isagoo fresh yimaada waxna ma noqdo isagoo sidiisii oo daraya ayaanu keennaa bulshaduna halkan ayay noogu timaadaa dalxiis restaurant dhexdiisa oo inaga iibsadaan processorada iyo dadka hoteelada lehiba waxaad moodaa imiga barihii hore waxaan u garaa sidoo maalinta jimcaha ummaddu ay hilibka cas oo ah geela iyo ariga iyo looda ay jimcaha aad u iibsadaan oo lagu sii xisaabtamo hase ahaatee nasiib wanaag imiga dadku maalmaha jimcaha waxaad arkaysaa iyadoo kalluunka kuyuyo loo istaagayo oo la iibsanayo oo aad moodo inuu hilibkii caddaa oo ka caafimaad badan oo ka faa'iido badan oo lahayn cholesterol iyo beer subag iyo wax laga qaadi aanu jirin aad moodo inuu isticmaalkiisina sare u kacay magaalada Hargeysa bulshada reer Soomaaliland annaga hadafkayga ee shirkad ahaan waa inaanu localkan supply garayno oo nu baahiyaadkooda dhameystirno samayno dhoofinad bulshada Itoobiya ee badda lahayn aan ka faa'iideysano oo halka iyagu jaad iyo inooga soo diraan annaguna balan taray garanayaan wax ka iibino oo aan kalluunka siino assalaamu calaykum waraxmatullahi halkani waa mid ka mid ah hudheelada lagu isticmaalo kalluunka Xasan Saciid Xuseen waxa uu ka mid yahay mulkiilaha hudheelkan lagu isticmaalayo kalluunka oo la yiraahdo xeeb joog ay noo sharaxo bal faa'iidooyinka kalluunka iyo sida lagaga isticmaalo ku soo dhaw telefishinka bulsho Xasan waan ku dhawahay aad baad mahadsantiin horta faa'iidooyinka kalluunka aad bay u badan yihiin lama soo koobi karo waxa ku jira vitamins waxa ku jira minerals waxa ku jira macnaha waxa koriyo calcium fara badan oo loo isticmaalo adkeeyo lafaha iyo ilkaha iyo waxyaabaha soo dhan xagga caafimaadka run ahaantii waa laf dhabar buu ka yahay waa muhiim xagga caafimaadka waa hilibka cad baa la yiraahdo dadkeenuna aad bay ugu baahan yihiin because waxa ku badan macaanka iyo dhiikarka iyo cholesterolka waxyaabahaas oo dhan isagu ma laha waxaan ku ugu daweeyaa typhoidka xagga cudurrada typhoidka ugu daweeyaa isticmaalkiisu markaa imiga dadka aad bay macnaha waxa ku ula qabsanayaan dadkii aad bay u cunayaan aad bay u isticmaalayaan waxa loo baahan yahay oo kaliya in laga baahi tiro halkan goobtan aad joogto waa goobtii ugu horeysay ee aan ka furnay kalluun sida hilibka geela loo cuno oo laga dhargo rikoodhkaana aniga iska leh dadka waxaan leeyahay haddaba bulshadana ka faa'iidaystaan khayraadka dalkooga cunistiisana ha badsadaan waa caafimaad waa macnaha waxaan ku ii sheegay ka jaban yahay hilibkii wax walba second xagga ganacsatada waxaan leeyahay ka faa'iidaystaan khayraadka dalka dadkana ha uga faa'iideeyaan xagga dawladda ama wasaaradda macnaha kalluumaysiga khayraadka badda waxaan leeyahay ummadda ha dhiiri geliso macnaha waxaan ku maagta ha siiso ii sheeg wixii ay agabkii lagu shaqaysan lahaa badoodana dadka ha uga faa'iideeyaan bulshadana waa kan ganacsatadana waxaan leeyahay idinkuna ka faa'iidaysta dadkana uga faa'iideeya halkan waxa dhacda mararka qaarkood inuu kalluunku kala go'o waayo ma lihin kayd macnaha kalluun qalabkii lagu kaydin lahaa ma haysano oo dalku weli ma laha haddana macnaha kalluun fara badan oo la soo saari karo oo dad badan oo soo saara ama mashaariic soo saarta ama macnaha shirkado soo saarana weli ma jiraan waa dad ganacsato yaryar oo iyagu la soo baxa dhawaan waxaa jirtay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka baddu waxa uu soo saaray wareegto lagu madnuucayo in laga keeno kalluun dibadda kaasina dibadduna meel kale ma ahayn waxa ahayd waddanka jaarka nahay Soomaaliya ayuu kalluunkaasi nooga yiminay haddii aad tahay adigu Xasan oo nin xeeb joog hudheelkaaga la yiraahdo magaalada Hargeysa bartankeeda inaad ku samayso kalluunka sideed u aragtay arrintaasi ay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka baddu ay ka dhawaajisay joojinta in kalluunka dibadda inaga yimaado horta fikirka waa soo dhaweynaynaa ay wasaaraddu ka dhawaajisay laakiin wasaaradda mid baan leenahay maxaad ugu tala gasheen oo aad ku hormarinaysaan ilaa waxa weeye kalluunka baahi baa u geysay dadka oo loo keenay baahidii waa inay wasaaraddu daboosho oo ay ugu tala gasho macnaha waxaan ku iyadu baahideeda daboosho gudaha ka daboosho saa darteed mar walbana anagu waan soo dhaweynaynaa in dalka la dhiiri geliyo
waa hagaag daawadayaal haddaba kuma koobna ka ganacsiga kalluunka iyo khayraadka badda Somaliland ama hodheelada ay ka ganacsadaan dadku kuma koobna ragga oo kaliya hooda Siciid Ducaale waxay ka mid tahay haween iyaguna u iibiya kalluunka isla markaana faa'iidooyinka kalluunka waxay noo sharaxday siyaabaha kalluunkeeda lagu isticmaalo hodheelkeeda hooda sida lagu isticmaalo hodheelkaaga waxa lagu isticmaalo saddexda waqti baa la cunaa kalluunka waxa la cunaa saddexda waqti qadadii quraacdii cashada marka kalluunku wuu fiican yahay cunitaankiisa aad baa imika loo cunaa dadku way barteen maraq baan ka sameynaa isagoo shiilan baan iibinaa bariiskii baa sidaan ku iibinaa marka kalluunku wuu fiican yahay haddaan ka sida dadku imika wax u cunaan aad iyo aad bay u cunaan qiimihiisana wax jaban baan siinaa hilibku ka jaban yahay caafimaadku wuu wanaagsan yahay wuu fiican yahay kalluunku sidee loo isticmaalaa hodheelkaaga sidee loo yimaadaa hooda waxa loo yimaadaa 4 saac waa la cunaa habeenkii baa la cunaa subaxii baa la cunaa nus saacaha la cunaa marnaba daawo daba kama qaadno waanu shiilnaa marka mar walba wala helayaa isagoo daraya oo maanta ka soo galay berbera kalluunkii maanta yimi baan sameynaa wax talaagada lagu riday ma iibino wax daraya oo nadiifa oo iminka badda laga soo saaray ayaan ku sameynaa meesha dhawaan waxa la mamnuucay inuu ka yimaado kalluunku dibadda oo wasaaradda kalluunka iyo baddu waxay soo saartay in wareegto lagu mamnuucay in kalluunka dibadda laga keeno si aynu keeno u isticmaalno arrintaas idinku sidoo aragteen waa sax weeyaan kalluun waxaan u aragnaa kalluunka ka yimaada xamar waa kalluun la soo fiileeyay oo aan daray ahayn oo isagoo raagi baa la keenaya laakiin kan uu ka dhadhan macaan yahay oo waa kiyo darayo waxaan ku isku jiiriyo isku midaba ma ahaba kalluunka xaga ka yimaado kalluun soo raagay oo talaagada lagu soo keydiyay laakiin kan waa kiyo qalabta badda laga soo saaray habeennimadkana waa la keenaa subaxana waan shiilnaaba marka waa daray kalluunkan berbera markaanaga kana noo fiican oo noo tayo badan oo noo jaban oo noo dhadhan macaan dhadhankan anaguna dan moodnaa marka kaayagan baa dhadhan macaan berbera taasi waxay ahayd hooda Siciid Ducaale oo iyadu bartamaha magaalada Hargeysa ku haysata hodheel lagu isticmaalo kalluunka dalka oo mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim anagu waxaan nahay dadka kalluunka isticmaala reexabeedka aad u jecel hadii jeer kalluunka aad u xiiseeya waxaan markaa leenahay dadka dadweynaha ama bulshada iyo dawladda waxaan leenahay in loo hirgeliyo kalluunka oo looga dhigo maalin walba hilibka laga dhigo maalin kalluunka laga dhigo maalina hilibka waayo si dadka bulshadu caafimaad uga hesho xagga maskaxda shiriyanka qaabka marka kalluunka la shiilayo aad aragtaan waxa weeye waa kalluun daraya oo la keenay oo xalay oo kale la keenay oo fresh ah ma garatay marka waxaan leenahay dawladda iyo dadka shacabka waxaan u leenahay kalluunka xaqiisa soo eega waayo kalluunka caafimaad fara badan buu leeyahay kaneecadu dawo ka yahay wuxuu dawo ka yahay xagga maskaxiyanka indhaha wax badan buu dawo u yahay marka waxaan leenahay xagga hadii ilaahay idanka ka dhigo insha Allah in loo soo eego kalluunka oo badda loogu tixgeliyo in sidii looga sameyn lahaa Hargeysa iyo goobaha kale ee goboladaba خيرات كبد